29-kii Abriil ayay ahayd markii China ay ku guuleysteen in rocket u diraan hawada sare, waxaanay u adeegsadeen gantaal ka mid ah noocyada ugu awoodda badan oo lagu magacaabo Long March 5B, balse warbaahinta China waxay caddaysay in gantaalkaasi uu xakamaha goostay kana baxay awooddoodii. Lama oga goorta iyo goobta uu ku soo dhici doono, balse ilaa shalay warbaahinta caalamka ayaa si aad ah u qaadaadhigaysay arrimaha la xidhiidha gantaalka Long March 5B. Mace Howard, oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee Mareykanka, ayaa wuxuu sheegay in gantaalkani dhulka ku soo noqon doono 8 May. Sidoo kale, wuxuu sheegay in aan la garanayn goobta uu ku soo dhici doono, balse la ogaan karo saacado yar uun ka hor marka uu soo dhowaado. Inkasta oo la sheegay in qaybo ka mid ah gantaalku ay hawada ku gubteen, haddana waxaa khasaaro weyn geysan kara qaybaha dhulka soo gaadha. May 2020 ayay ahayd markii rocket noocan oo kale ah oo laga leeyahay China uu xakamaha goostay, balse wax khasaare ah oo weyn lama sheegin marka laga reebo dhismayaal dhowr ah oo uu burburiyay oo ka mid ahaa Ivory Coast. Badanaa gantaalada noocan ah ayaa loo adeegsadaa inay awood siiyaan oo ay qaadaan rokotyada loo dirayo hawada sare, waxaana loo qorsheeyaa inay ku soo dhacaan meelaha badweynada ah. Warbaahinta caalamka ayaa ku soo waramaysa in gantaalkan xakamaha goostay uu ku dul wareegayo dunida oo dhan, isagoo jaraya saacaddii 27,600 oo kiiloomitir.